xisbiga wadani ayaa ku guuldareystay inuu ka dhab sheego hadal ay dhowaan u sheegeen warbaahinta markii ay ka soo laabteen dalka Kenya. haddaba madaxda iyo mas'uuliyiinta ayaa ka farxiyay bulshada ay abaaruhu saameeyeen ee gobolada dalka Somaliland. hadalkaasi mase rumoobin oo wuxuu isku bedelay nin isfaanshay waari isnuugtay. madaxda iyo mas'uuliyiinta xisbiga wadani ayaa si isdaba jooga xaflado ugu qabanaya lacagtii ay ka soo qaadeen hay'adaha caalamiga ah iyo deeq-bixiyayaasha ayna kula soo shireen dalka Kenya iyo wadanka Nairobi. xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa iyadoo oo geesta kale oon iyo haraad loogu baqtiyayo gobolada bariga Somaliland gaar ahaan Badhan iyo Buuhoodle iyo Caynaba ayaa waxay xaflado isdaba jooga u qabanayaan taageerayaal ay ku soo dhaweynayaan lacagtii ay ugu talagaleen dadkan danyarta ah ee gobolada bariga Somaliland abaartu sida xun u aafaysay. munaasabadan oo ahayd mid si ballaaran loo soo agaasimay isla markaana lagu soo dhaweynayay haweenweyne ka soo digarogtay xisbiga kulmiye isla markaana ku soo biiray xisbiga wadani ayaa ahayd madal kulmisay saraakiisha ugu sarreeya xisbiga wadani taageerayaal aqoon-yahano iyo marti sharaf aad u tiro badan. ugu horreyn madashaasi waxaa ka hadlay saraakiil ka mid a xisbiga wadani isla markaana gacmo furan ku soo dhaweeyey taageerayaashan ku soo biiray xisbiga wadani waxaana ka mid ah hadaladoodii. haddaan nahay xisbiga wadani aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa. waxaan leenahay walaalayaal soo dhowaada. xisbigani waa xisbigiinnii, waa xisbi aan cidina gaar u lahayn ummadda reer Somaliland ay leedahay. hadday kulliye qaali ku ahaayeen wadanina qaali bay ku yihiin insha allahu tacaala ku noqon doonaan. amarkan iyakan arigii xaraasho awrbaa ka joogay tagnimaha waxaanu dhibna looga warramay ilaa iyo ceerigaabo idinka arkayay waanu soo aragnay intii awooddeeda ahayd baanu qaybinay intii dadkaanu ugu baaqnay dalkaanu ugu baaqnay dibaddaanu ugu baaqnay haddana dunidii baanu u tagnay xaq baanu leenahay xaq muwaadin baanu leenahay mid mas'uuliyiin baanu leenahay mid mas'uuliyiin qaran baanu leenahay oo yani speaker baarlamaan ka mid yahay mid mas'uuliyiin xisbi baanu leenahay waa waajib muwaadin walba saaro dastuuriya waliba waa waajib islaamiya oo qof kasta oo muslim amarkan iyakan arigii xaraasho awrbaa ka joogay amarkan iyakan arigii xaraasho awrbaa ka joogay